السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبولموج ميديا مeel kasta aad dunida kaga sugan tihiin waa maalinimo 4 bishii 6 2020 waxaan warkeena ku bilaabeynaa tiyaatarka qaranka ee National Theatre Lawrence ayaa waxa uu taagan yahay dhammaad isagoo la filayo in la furo bilaha fooda inagu soo haya wili Mareykanka ayaa mudaharaad ka sii socday isagoo galay maalintii 7 xaaladda ayaa wili ka sii dara gobollo fara badan oo ku yaala dalkaasi maayarka amaba duqa magaalada New York Blasio ayaa waxa uu dalbaday waxa loo yaqaan National Guard fadlan daawada hadday tahay markii kuugu horeysay channelka subscribe saar gambaleelkana furo adigoo mahadsan si aad noola socotid daawadayaal waxa gabagaba ku dhow amaba meeshii ugu dambeysay maraya tiyaatarkii qaranka ee National Theatre Lawrence kaasoo dhammaanba loo dhameystiray adeegyadiisii isaga oo u harsan kaliya in tiyaatarka xariga laga jaro amaba waxyaabo yaryariiso aan micno lahayn loo rabay waxaasi arintaasi noo sheegay wasiirka maaliyadda oo shalay maruu booqashaalkaasi ku tagay Dr. Bailey waxaan kula idinhaynaa daawadayaal dalka Koonfur Afrika dawladdu waxa ay khafiifisay ama culayskii ka qaaday waxyaabaha ligudka iyadoo awal dawladdu ay dhammaanba joojisay waxyaalaha ligudka sida waxyaalaha khamriga iyo sharaabada kale iyadoo haddeer sheegtay inay culayskii faraha badnaa ay ka qaaday waxaa halkaasi arkaysaan inay safaf dhaadheer ugu jiraan dadka sidii ay u heli lahaayeen waxyaabaha ligudka ah amaba goobaha lagu gado dukaamada iyagoo saf ugu jira taasoo ay isu jiraan dadku masaafo waxa loo yaqaano social distance dawladda ayaa waxa ay goob walbana dhigtay waxyaabaha ama qalabka lagu baaro COVID-19 si ay oo xakamayso Koonfur Afrika oo ah dalka Afrika ugu horeeya oo uu haleelay cudurkan ahna dalka ugu saameynta badan ayaa waxa uu dadaal ugu jira sidoo cudurkaas u xakameyn lahaa amaba uu dhimi lahaa waxaan kaloo idinna daawadayaal dalka Zimbabwe ayaa waxa uu ahaa dalka dhaqaalihiisa ugu badni ay ku xiran yihiin tubaakada waxa loo yaqaano taasoo lacagta adag ee dalkaasi soo gashay uga iman jirtay warshadaha sigaarka sameeyay ee ku yaala dalalka dibadaha ku yaala dalka Zimbabwe ayaa markii uu coronavirus yimi waxa uu hoos u dhac u yimi iibsigii ama dhoofintii waxa loo yaqaan tubaakadaas oo dalal badni ay qaadan jireen waxaanu kala idinhaynaa daawadayaal dalka Venezuela waxa soo wajahday shidaal yari aad u baahan iyadoo shidaalkina qiimihiisu cirka isku sii shareeray Venezuela oo ah dalalka ku yaala Latin America ayaa waxa uu shidaalka ka heli jiray dalka Iran Venezuela ayaa waxa uu shidaalka ka heli jiray dalka Iran shidaalkaas oo shidaalka ugu badan ee dalkaasi u soo dhoofa hase ahaatee sanadahan dambe Iran iyo Mareykanka markuu xiriirkoodii xumaaday ayaa dalalka Mareykanka xulafada la yahay ee uu badda jooga ayaa waxa ay xakameeyeen amaba ay diideen inuu halkaasi maraan maraakiibta shidaalka sida Iran bishii hore ayay ahayd markab Iran leedahay markii halkaasi ciidamada dalka Venezuela ay u galbiyeen dhinaca iyo dalkaasi waxaan idin kala haynaa daawadayaal dalka Mareykanka banaanbax aad iyo aad u xooggan ayaa aqalka cad hortiisa laga dhigay taasoo sababtay in ciidamada sida gaarka u tababaran ay lagu soo daadgureeyay aqalka cad iyadoo Mareykanka la sheegay inuu ka sii darayo dhammaanba uu ku baahay gobolada dalkaasi mudaharaadyada xoogganaa oo lagaga soo horjeeday dilkii foosho xumaa ee loo geystay ninkii madowga ah taasoo u geystay askari cadaana mudaharaadyadaan ayaa waxaad moodaa inay isu bedeleen kuwa rabshado wata iyagoo meelo fara badan oo ama gobollo badan oo dalkaasi ku yaala lagu gubay baabuur lagu bilileqeystay dukaamo fara badan lagu jijibiyay hanti badan lagu gubay gawaari ay boolisku leeyihiin waxaa halkan aad ka aragtaan booliska qudhiisi oo ka mid noqday mudaharaadka iyagoo cabiraya dareenkooda ama sida ay uga xun yihiin maayarka magaalada New York Blasio ayaa isagu qudhiisu waxa uu dalbaday waxa loo yaqaan National Guard ama ciidamada khaaska u tababaran ee qaranku leeyihiin si ayuu yiri loo badbaadiyo gobolka markii magaalada New York ay noqotay meesha ugu daran taasoo lagu gubay gawaari fara badan oo ay boolisku leeyihiin iyadoo dadkina la xakameyn waayay mudaharaadyada markii hore ku bilaabmay kuba nabada ama u socda si habsami ah ayaa markii dambe waxa ay isu bedeleen mudaharaado khasaare dhaliya وبولموج ميديا تن إيا كلنتي الدم أو حيسالة داوديال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعد نورس عطاء فندل جنة السبسكرايب صار جنبنا كان فروع هنا كم مغنان سعد فيديو يدنا حاجة
amaba isxiga ay joogtada ah aad ula socotaan waadna mahadsan